Sheekh Usuli oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed isla markaana fadwada su'aalaha ay soo weydiiyaan dadyowga ku tixan mid ka mid ah telefishinada oo markaasi uu Sheekh Usuli soo fadhiisto ayaa la kulmay toddobaadkan su'aal markaasi ka yaabiyay isla markaana dadka qaarkii ay fajac iyo makaag ay ka muujiyeen. haddaba mid ka mid ah dadka barnaamijkaasi ku tixan wana haweeney waxa ay la soo xiriirtay Sheekh Usuli waxa ay weydiisay su'aal ahayd ninkeyga ma qancin karo marka la fiiriyo xagga gogosha maxaan sameeyaa. haddaba ani ka hor dhici maayo dadka qaarkii waxa ay doonayaan sheekhu waxa uu ku jawaabay inkastoo ay taasi noqotay mid markaasi la yaab ku noqotay dadka badankiina ay ku tilmaameen in gabadhani ay xishoodka ka tagtay. gabadhan waxay leedahay markaan soo guursanay waa ku soo sirmay waxaan u maleynayay in markaasi ka adag xagga sariirta laakiin aniga baahideeda ma dabooli karo mana i qancin karo maxaan sameeyaa. walayad bille waa fajac iyo makaag bal aynu wada daawano su'aashaasi waliba sida uu uga jawaabay Sheekh Usuli. نواسبة ها منكوسة علمية هاي سؤال هذا شيخ وين كويديو هاي سؤال waxay tahay aniga iyo qof xaaskiga laba meel kala degan yahay هاي ani xaaskiga laba magaalan kala degannahay waa garta sheekh hore la weydiiyay marka sheekhi waxaan ku dhahnay xaaskaygii aniga computerka kaamarada ma laga wada raaxaysan karaa هاي haayuu dhahay هاي raaxadii waxay tahayna muu macnayn oo ma dhihin ma sawir suuradeeda ku raaxaysan kartaa ma codkeeda sheekadii raaxu ku soo gabagabay sheekhi kale waa garta sheekh raaxada waxay noqon kartaa mid ciyaar suuqnimo ay noqon kartaa mid suurada ay noqon kartaa sheekh waxaan joogaa jarmalka waa garta sheekh naqlaan baa ka dhacday waxaan doonayaa naga cadaan guursada sheekha macaadida gabdho dhahay jarmalkan waa arka dhahay nin la'aan ka dhacday jarmalka ra'yigaaga muxuu yahay naqlaan baa ka dhacday aniga hadda gabdho isoo waceen aqaan allahay nin la'aan ka dhacday wax la guursado ma leh marka halkaas waxba lacag badan bay doonaysaa ha ma naam taariifkeeda ka bixisay doonaysaa naam هلا ha الشيخ ميا ha سؤال بقى شيخ ويديني أيوه. سؤال ويديني يا شيخ hay weydi شيخ عاصمة لي موتاي waa garta مركا وان استفسيغ ده wax leeyahay hay marka maxay ka qabtaa shuruucada islaamku ma xaraan baa mistaw ma banaana arrintaas ma banaana xaaraan wey oo darar ay leedahay sheekh nina ay guursaday waa garta ninkii waxa isku qabsanay woo ifuro wuxuu dhahay laba dalaaqad iga furanta oo dhahay waa garta laba dalaaqad oo magac sheegay ma ka furmaa sheekh adigu kula hadlay sooma adigu ku sheeg sooma magac inuu sheego adigu hortiis ma taagnid aniga hortiisa taagnaa iyo wali laba nin oo markhaati ah waa furanta ka furanta waa ka furanaa ma ha caasho heblaayo ima dhihin may shardi maaha markay maqan tahay waa markuu islaamo badan qabo iyo markaa maqan tahay magac inuu sheego laakiin haddii adigu qof kula hadlaya tahay waa ku furanta waa kaasa marka haddii wax nii dhiman yihiin rajacta ha jira haddii wax nii dhiman yihiin ha soo laabto haddoo aabaheeyo raali Sheekh Usuli ilaah ku barakeeyo maasha Allah waa hooyo Soomaaliyeed oo joogta Muqdisho. بارك الله فيك أختي جزاك الله خير Sheekh waxaan rabay inaan ku weydiiyo laba su'aal. mid kood waxa waaye sheekho waxaa jirto xaasa ahay xaajiga marka xoogaa waxaa waaye dadka aan lacag badan aana bixinaynin marka kasta biiloo kaleeto bixinaa marka sheekho biilkaas haddii intaa wax aan ka dhex bixiyo aan hagbad ku galo familiga iyo guriga waxay u baahan aan dib ugu soo celiyo sheekh dambi miya نعم أختي waxa aad beeqaamsatid oo meel dhigatid ala askale wax fiican way
oo wax fiican aad samaynaysaa gabadha oo xaafidada ah oo ilaalinaysa guriga oo maalka ragga kabayso wax fiican weeye laakiin akhlaaqda waxaad moodaa diintana waa ku banaynaysaa wixii lagu siiyey waxaa meel ka dhigtada askale asaga wuxuu ugu talagalin marsuuf haddii allahuma haddii aad dadka aad cunuqabateen ku samaynin ilmihii aad cuno la-aan dhigin oo odayga aad cuno la-aan dhigin oo markaas xaqooda aad ku xadgudubtaa gaar wey laakiin wixii aad adiga kusoo haro waa leedahay ama wixii u baahan tahay ziyaadada waa ka qaadan kartaa xataa xadiiska Abu Sufyaan hindi tiri bakhiil waa ninkan waxba bixiyo jaabkaaga wixii ka kaafi ka qaado uu yiri marka xadiiskaas caqsigiisa waxa laga fahmaa ina wixii kusoo haro marsuufka adaale laakiin akhlaaq ahaan ma wanaagsantaa maya odagaaga bereed soo ogaaday islaantii lacag leh soo shaki ma ka dhalan karan halkaas oo sida gabadhan lacag marsuuf yaraa sii jirtay laageen hadda samaysay halkay ka keentay dad kale ma siiyay dhibaatay leedahay akhlaaq ma wanaagsan bal inaad isku kalsoonataan aad u sheegtid aad tira waxa isiisa wax ka baxsaday oo kula ogaado wax fiican ta insha Allah taasaan kula talinaya dhinaca kan halo السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ وسولي وحرب اللي بس علينا كويديو. تنكوات. مدكوات وحرب الشيخو دلني ردان أو يرير أو توابرك الله قاضي أو عدني سوبي لقيي أو قال ستحدث لقيي دقال كاسك خيب قلي أرنتاس دين تمحيكا قبتا مد اللبادنا مدحدي أو عن دسكي لهد لينين والدين تبرورناي dadka muslimiinta ahaayeen ilmahoodii la qaaday arintaasna diinta maxay ka qabtaa sheekh Saduq akhi masalada hore waxa ilmaha la qaaday waa arintaas cadeyn ay u baahan tahay bayaan ay u baahan tahay saan sheegay haddaan ka hadlayni shahaado zuurnimada waxa kamid ah war kasta loo iska sheegay la iska qaato oo waxay u baahan tahay qofka inuu cadeyn u helo cadeyntana waxa la yiraahdaa albayinatu ala almuddaci wal yaminu ala man ankar cadeynta marka hadda dawladda xageeda saaran tahay dawladda laga rabo inay cadeyso la hadashiiso caruurtii ilaa wadan kale jiraan military waa wax la qorto dhib ma laha laakiin inay cala aqal walwalkaas ay waalidiinta ka qaato waa mas'uuliyad saaran way haddii ka cabsan mas'uuliyad ka baqaan warka aan dhamay akhiisu ay ka baqaan wararka banaanka laga sheegay haddii ka aamusaan dadka shakiya galay marka waxa wanaagsan nabiga kaleey salaatu salaam wuxuu noo sheegay inaha safiya markuu jidka la socday xaaskiisa habeenkii uu i'tikaafka ku jiray laba nin arkeen ay carreen nabiga kaleey salaatu salaam wuxuu ku yiri ala risukuma inaha safiya maxaa wuxuu ka baqay nabiga kaleey salaatu salaam nabiga kaleey salaam naag mugdiga la marayso hadhow dadka ku sheekaysan xalan talo naagtii qofku loo dumarku la taagna laakiin nabiga wuxuu yiri xaaskay waa ogaad asaa u wacay waa ka carreen oo saa u yeeray macnaha waxa leenahay diintu waxay qabtaa hadduu shaki yimaado qofku muuminiinta shaki in laga qaado shakigan waa iska sahlan yahay ayadoo loo siin karin ayadoo la dhihin waxaan dada ka dambeeyay dada ka yeelin in cadeen la raadiyo ay dawladda bari yeesho ay tiraaho dawladda la hadashay tiraaho nin kasta waalidkaaga waalidiinta la shirto ay tiraaho wiilkaaga waa kana telefonkiisa la hadal waa lagu soo hadalsiinaa dawladda ilaan dadka aakhir ma jiraan adduunyo jooga meesha reemaha ka joogaan hadday aakhir jiraan ay dhacdaan inay ay sheegaan markaas wixii diiyay ay wixii maka dhaw wixii waalidka ilaan wax bini aadam nafo wax laga hadlayo marka taas waa ka السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ وأوبرت. ها. شيخ لو سؤال أنا ربنا كويتي الدول دي. تنكوات. هذا ما كان هبين دوت واحد يسأل سؤال من كويتي ولا يهي على حرانا يعني هو وين. ها. marka waa fahmay mid qofka isagoon ogeyn oo san wax shaqo ku leeyahay oo dhigi karo okay waxaas dib ma lahan laakiin markii uu ogaado in xoolihii ay xaraan yihiin soo kuma wanaagsaneen inuu xoolihii iska celiyo wixii hore uu isticmaalmay inta uu ka haayo inuu xoolihii iska celiyo soo ma ahayn baab warac waa kaas laakiin xalaal iyo xalaash kuma xiran waan sheegnay xool maalka niri nin kala arkay asna walaal u dhahayo wax cayn kama hadlaan xoolaha qamar lagu siiyey ama wax riba ah oo lagu siiyey wax kama hadlaan waxaan ka hadlaa maalka kasbiga ayuu ku xalaaloobaa oo ku xaaraantoobaa haddii adiga lagu hadiyeeyo cid ku weydiiso waxaa leedahay yurubaa joogta adiga gaalada lacagtii hadda ay bixisa ceerta u bixisa halkee ka keentaa xalaali kusoo shaqaysa mase xaaraani ku keenta labada wax waa kala duwan yihiin waxay ku kala duwan yihiin ninkan waxa uu gaalada iyo nin dawladdu waxay bixisay waxay bixiyay adiga waxa wax ka qaban kartid ma aha laakiin akhi ani waxaan ka hadlayaa maalka kasbigiisa qabasho kuma xirna fiir hal wax yadan kaa dhex galo anigoo nin la soo dhacay oo gurigiisa xabad looga dhacay oo la isiya waxba ka ogeyn maalintaa ogaaday in la soo dhacay
waxaa aniga liiga rabaa wixii inaan celiyo ها لكن قال waxa aad ku iibsato lagu soo celinaa laakiin Soomaa qaaliga waa ku celinaa waxa ka iibsatay lacagtaada lagu soo celinaa ma xaaraanta ma wixii xalaasheeda ma aha waxa haday ma ka hadlo waxaan ku yiri maalka kasbigiisaan ku yiri laakiin haday waxa ay yihiin waxa oo cayn xaaraantooda cayn sida qamri maal la soo dhacay oo qof kale daba taagantaho la haysadee tahay kaas waxa weey hadaa gadatidne waxa uu leeyahay maxaa u kaalmays laakiin xoolahaaga waa lagu soo celiyaa oo aad wax ku gadato laakiin beecaas ma ansaxay leeyahay oo ma aha laakiin macnaheedu ma aha qaadasho akhi asalka qaacidada asalkeeda qaado daliileed u laabo hadaa daliil rabtan daliilkeed u laabo maalka qofka asalka qofka soo gool aabaha haduu qamra baar qamri ka shaqeyn jiray maalkiisa waa dhaxli kartaa hadaa warac u diidin adig ma dhahaysa aabay baar qamro lahaa maalkiisa dhaxal ma gala ma dhihi kartid maxaa yeelay dhaxalka waxa lagu qaataa ubuwa iyo bunuwa lagu qaataa cunug ahaan u dhaxlaysa meesha ku keenay maalka asaga lagu xisaabtama saaxiibayaal waa daawateen haddii aad inagu cusubtiin subscribe leega baleelkana furta si ay idiin soo gaaraan waxyaabaha xiisaha badan markaasi aan soo dhigno haddii aad horey inoola joogteen madaxaad inoo saarantii saaxiibayaal haddii aad ammaan dhaliil bogaadin taliyo tusaalaad inoo heesaan qaybta commentiga nagu reeb oo inadin akhrin doona haddii allah awoodda leh uu raali ka noqdo waa nabadoonka youtuberada Soomaaliyeed xaaji ducood ile muuqaalka kiisaydan ku kulmi doona anagoo isku duumo waxaan idinkaga tegaynaa sidaas nabadgelyo